munaasabadana shirkadda Telesom ku wareejinaysa $500,000 oo ugu talagaleen dadka ay saameeyeen abaaruhu ayaa lagu qabtay xarunta guud ee shirkadda Telesom taasoo ay ka soo qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda gudida abaaraha maamulka iyo saamilayda shirkadda Telesom waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed shirkadda isgaarsiinta Telesom Dar es Salaam Bank Somgas iyo shirkadda Leerka Tag in muddo 3 bilood shaqaaluhu mushaharkooda uu qaybo kamid ah u jaro dadka walaalahooda ee abaartu ay tabaalaysay madaxda shirkaduna ayaguna ay wax ku daraan saamileeduna ay wax ku daraan taas oo markii aan isku geynay noqotay lacag $500,000 ah halka aad ka soo saarteen wax ka weyn Allah idin ka soo saaro shirkadda Allah ku ilaaliyo ومدحي الله كوي لاريو وشغالين الله كوي لاريو إلى هاي شركة بركة يو ربح الله السيادي. هاي حقيقة نيسا يعني تتكلم نولي ولا دريني أي حاجة قالوا يجين ولا قابتهم بركيسان حرنتي تلسون أو أين كوجدومي دونو دقيقة قيمة بدنا نص مليون كاشن تبغى لكون $1 أورنتي دقيقة وجوينيد شركة بحسي أنت إنه دكتشنا حولها عبارة